somalilan kalafoo waxaanu ka soo baxay iskuulkii kadib markaanu ka soo baxay waxaanu aaday masaajidka markaanu salaada jumca soo tukanay macnihii waxaan arkay niman dhalinyaro oo aad u falanqaynaya macnihii wadahadallada somalilan iyo khaatumo gebi ahaanna soomaalida oo dhanna arrintan baryihii u dambeeyey way ku cusub tahay oo aad baa loo qaadaa dhigaya marka bal waxaa ila taagan nin dhalinyaro oo la yidhaahdo cabdullaahi iyo nin kale oo dhalinyaro oo isagana la yidhaahdo salmaan labada nin ee dhalinyarada waxay kasoo kala jeedaan mid puntland midna koonfurta soomaaliya iyo gobolka banaadir ee magaalada muqdisho bal aan cabdullaahi ugu horreeyey waar cabdullaahi soo aragta wadahadallada khaatumo iyo somalilan aad iyo aadna ugu faraxsanahay salaada kadib inaan ku kulanno xaafadda soomaaliyeed ee kalambuur aad iyo aadna ugu faraxsanahay barnaamijka aad diyaariseen alxamdulilah aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maxaa yeelay soomaali wada hadlayso aanan maanta dagaalamaynin aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maxaa yeelay haddeertaan adduunyada xabadda waa laga tegay wax la wada hadlo wax meel laysla dhigo wixii la isku fahmo la wada qaato wixii aan la isku fahmi waayna هذا اللي استحل واقع لكن واحد جت خاطبه وصلوا صوايا كسعرة وهذا خاطبه حي بالتاجي بعده الصومالي اللي هو حيقول بيريا إلى لما جو أبي كلامه ولا السعودية لما دي جوال كونفورت يومي إحنا يدبلوا السعودية ومعنيه أن عرضي أي كونفورت قاعدين بين الصومالي لا رجال مركب معنيه ده كان هو ده ما يسوي السعودية كأنه وشو عركة وصل للتايس ده كان وصل للتايس marka way aad macni u tiraahdeen kulna baa raacaysan oo Soomaaliland waxaan idin haynaa habeerada ma jirto taas waa hadda siyaasadda jirta annagana shaqo ku leeyahay dadka iska dhalinyaro xaafadeeda nahay laakiin waxyaabaha ay tabanayaan waxaan jeclaan lahayn in laga xalliyo dadka walaalaheena ama reer Soomaaliland ama khaatumo ha ahaadaan wax waliba ummadda Soomaaliyeed oo diintan oo diinta dalkana oo wasana waa dawladda Soomaaliya hadda ka tixaba madaxweyne kenya xasan sheekh waxa uu yiri beelaha la yiraahdo dhulbahanta gobolada sool sanagi ay ka soo jeeda sida aan ku maqlay sida wararka ku hayo waxa jirta inuu yiri xildhibaano ay leeyihiin oo 12 gaaraya xildhibaanadii wuxuu saxay puntland qaarna Soomaaliland qaarna wuxuu dhex dhigay dad kale wuxuu dadka Soomaalida qaybsanaya xildhibaanadu way meesha waayo dad macnaheedu maamul uu aqoonsan yahay ma hayaan maamul gobolada laba aqoonsan maamul gobolada male wuxuu leeyahay waddo la isku haysto Soomaaliland iyo bilaad kala raacsan marka macnaheedu yaa ee dawladda Soomaaliya uga hiisay puntland iyo Soomaaliland iyo maamuladii kale ee Soomaaliya oo macnaheedu si cad ugu joogstay waxa ugu joog xasan sheekh ku joogsaday khaatumo yaa la oran karay wallahi aniga taas xaadir u mehen meel puntland iyo Soomaaliland ay wax ku qaybsanayeen maqalka bulshada wararka waxay sheegayaan dadkaas wax bay tabanayaan wax tabanaya ayagoon laga qancinin sababaha ay wada hadal ku galeen dhibaato jirta awgeed oo maamulkooda dhanka Soomaaliland ka haystay iyo siyaasadda guud oo xamar taalay oo ogeeyay dhibkay leeyahay oo lagu qancin waayo inuu qalbi weeyay taas awgeed wada hadal ku gashay ma sha Allah wada hadalkan ayaan ugu baxsan maadaama gobolka banaadir soo jeedo xumaano ugama aadi waan ku faraxsanahay تيمك وحالات هكذا سلمان وحوي وغير بنتلان سلمان وبنتلان أربعة وهذا الصومالي اللي يخاطبوا أدنى وصول كذا وفيني ألف تقالبيا ومعني وحيليه على خليفة يخاطبوا حيكون عيارين معني وحي اللي يسمعوا نفس حرتي أما معني اسمه دولة بنتلان دوسة قال بقول سديت هي سياشي يسديدي لو بيسجروه سواء تو هذا خاطر شوية أيوة أنا من هرت سوماليا فلان بحكي لي حويني وأنا سوماليا من خاطرهم يروح أنا اعتراف سنة هي بقى سوماليا روح هذا هنا يتحي أنا وطن هنا يتحي أنا وما اعتراف سنة برضه مثل ويا أنا سوماليا لو حانوا تعرفين هنا نقطة حلمي وحنا كنا جوجوني ولا هاي قبل هبل يا قبيل وحصل أنا ولا حصل والله حتى الله بس خاطرنا شيء اسمه حوي خاطرنا وقبل وما نقول وقبيل وش تجي بقى واحد وش تجي ويوم مركب واحد كل شيء واحد أنا Soomaaliland iyo khaatuna heshiiyay de waxa uu qabtaa laba beelood oo hal meel والأصل
Somaliland وبسمع ما مثلا لكن أنا مثل Somaliland ولا خاتم ولا بطلان ولا اللي يقولوا يقول كذا واحد جرى بطلان ما أمسنا وحدي خاتم واحد ويا خاتمه وبتتبع وبعديه خاتمه والله صور ساقي عيب حكيت ساقي بطلان على خليفة يوحنا وتوتر هذا يسمى وحيله يوحنا وصلنا يقول معه dadkii beelaha dhulbahantii la isku oran jiray soo lisaraag ay ka soo jeeday garoway joogaan oo madaxweyne ka mahayna oo golihii wasiirada ka buuxa oo xildhibaanadii ka buuxa marka saas uu sheeganaysaa adigina waxaad leedahay waa macarihi waa dowlad goboleed sida Soomaaliland oo kala marka hadday heshiiyaan waa taageersan marka macarihi golihii ka أنتيدو وحويه أنا كنت بقول خاطر ولا ليه بتعمل كلام سوى ده بس مش واحد كده يلا ممكن كمان واحد رواني لكن بس أنا هاي الصومالي صادق أفضل هيك بعد الصومالي وبكرة الصومال لأنه عادي واحد قال له سوى صاير أصل كده هو صح دي هوسي كده القبيل بقى إبك كده كلنا أو متسكين ساد يلسان دي خاطر Somaliland تحدث على وربحات Somaliland كبير عليه نسبه بطلان يلا ورنا يبو بابا يبلا هرتي كده حي ورنا يبو بابا كل شيء وحوي Somaliland محطين نحطه وطن وحوي Somaliland كنت بيقولوا ولا حي يقولوا على حق وحوي يقولوا الشيء أنا شغال أنا كنت أنا ما أقولها وحوي كوستان فلان ومكان أنا حوي ومكان كل بحنتي وأنا حتى لو كنت وأنا واحد صغير وأنا كل شيء وحوي قبل مثل كلي ما هذا عالي وحوي دي سياسي نظام يوحوي سياسي ونبى وحوي كدروا وجهك نحوي هيك كدروا وجهك هيك سؤال قاتبة كدروا وجهك نحوي هيك كدروا وجهك هيك سؤال قاتبة لكن لا يسوي سلاك أنا بسوي صار يا وحوي ليش يقول بسوي صار الله فإذا لا يبني وش تقال على سوري سلام حاجة سوق درب اللي الوي وحوم بعليه يوم هو قبل أكثر واحد وريا وبعليه ذي كاب وشي كرب عليه حاجة سوق وحساسات قبل الله بس هو قبل الله لا بد أصدق لا كرو وحساسات كي يصور حساسات كي وسبب بنا يا كرو ميل يعني ركز الحقاس ركز بدن كل شيء وصل كل شيء أنا هوي أنا حاس لكن أضوء كذا اللي يرحل أضوء أي وحوي من هذا كده واحد خيالي صعب بينا نحسين أي أنا هوي تذكر وإلا برا إنما Somali واحد كان يبغى إسلام خاطر Somaliland وحصدور وين سيد حاس كده أنا هو واحد ترى سنة Somaliland أنا Somaliland على كده هو حل سجاش استقال بينهم على سجاش استقال مرح ما شاء الله والله runtii hadii laga hadlo xaflad midlaan baan ka qayb Somaliland ka qayb waxa weeye xiskeeda aan xasin waxa weeye wala Facebook baan ka baran comment waxa weeye anu waxaas baan isku qaday ما شاء الله gobadhibo Salmaan iyo Cabdullaahi waxay ahaayeen niman dhalinyaro ah oo yara fadhiinay wada hadallada ay Somaliland iyo Khaatumo warba isku raacsanahay dadka Soomaaliyeed سؤال هدي لك خلطايو ما أنت Soomaali isku imaanaysa hadii la dhahayo uma leeyahay sidii la isku keenay way adkaanaysa hadii waa la kala guuraa la hayna waqooyi iyo koonfur loo kala guuraa aniga maxaa yeelay Soomaali si isku timaado aad iyo aad u adagta maxaa yeelay aad iyo aad aan ugu qanacsanaa lahaa maanta dawlad awal leh ma jirto oo dad kala maareysa waqooyi koonfur la kala baxo dawladda samaystaan waqooyi koonfurna dawladda samaysato
dowladda xamar fadhido beentaan بنتها وحبك koonfur haddii amniga dhigaysa ka dhigto wax kale iska dhaafto waqooyi halkooda iska بس شوي waxaynu isku raacayna waxaan ku soo go'aynaa barnaamijka heestii ee Soomaaliya ee caanka ahayd ee la wada yaqaanay Soomaaliya tooso isku tiirsada adbakiina kaag daranay taageero weligiinay waxa aan la ooyayo qalbiga qubanaysa Soomaaliya tooso